maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa mudooyinkan waxa uu dayactir ka waday wadada wadnaha oo muhiim u ah gaadiidka BL-ka iyo socodka dadka. Wadadan ayaa maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir waxa uu ku sheegay dayactirkeeda inay ugu golan yihiin gaadiidka in si wanaagsan ay u isticmaalaan wadada, asigoona sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in hore loo qaado bilicda degmada Howlwadaag. محمد أبوكر علي جعفر وقدوميها دقمدا هولوداغ ee gobolka Banaadir waxaana warbaahinta u sheegay dhismaha wadooyinka inay gacan ka siineen dawlad iyo hay'ad shisheeye ay kaligood isku xilqaameen sidii wadada ay gaadiidku isticmaali lahaayeen wado wanaagsan. محمد أبوكر جعفر قدوميها دقمدا هولوداغ ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay ammaanka degmada asigoona sheegay in howlgalla mararka qaar ay sameeyaan ayna iska jiraan mararka qaarkood falal ammaanka liddi ku ah oo ka dhaca degmooyinka dhan ee gobolka Banaadir taasna ay kala mid yihiin asigoona carabkiisa ku adkeeyay in degmada Howlwadaag ammaankeeda xilligan uu yahay mid wanaagsan. markaan arkayna aragnay inaan hadda cid barigiisa dad soo taagay aan saan kuma fiirsan kartiin marka inaan wax ka qaban oo aan dadkii meelaha gudadka soo arkaysa dadka soo aad u haro oo ku dhacay oo dadka dhex yaala marka dhibkaan haysta waad ka qaban kartiin sidaas aan u qabanay cid aan hadda anagu aan noo soo dirto ama waxyaalaha ayaa nafartay qaar ka mid ah gaadiidleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankooda ayagana soo dhaweeyay dayactirka dhanka wadada wadnaha ee maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir oo mudooyinkan ka waday. degmooyinka gobolka Banaadir ayaa mudooyinkan waxaa ka socday olole jidka lagu furayo iyo jidad waaweyn oo laga hirgelinayo 17 degmo ee gobolka Banaadir. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, telefishinka caalamiga Puntland TV, magaalada Muqdisho.